jaceylka nooca kale waxa waaye passion love waxa waaye jaceylka dhaxmaro bahalka sheeg ninkii naagtis qabo haday tahay galmo labada qof binaadamka ilaahay maxaa dirshig xaar iska karigi way isku galmoonayaan ilmaha meesha laga abuuraa la rabaa waxyaalahaas oo dhan taasoo kale maaha in la isku tago maxaa dirshig sida ninka ku helo ma aha waxa loo baahan yahay xuduud naagtu waxay leedahay rabid ninkana rabid uu leeyahay saa ogsoonahay naagta rabideeda ninka waxa la yiri rabidiisa soo hormarto tan naagta dambayso taas waxay keentaa dumarka iyo maxaa dirshig ku abuurta depression murugo ma sheegan karto ma dhigi karto aniga waxaan dirshig rabideeda taada soo hormarto tiyada dambayso waxa ka dambeeya 50 daqiiqo ii fuli ma dhigi karaa rabidiisa markay soo hormarto waxa loo baahan yahay ninka inuu fahmo awish inay barnaamijkan nimankan ay maanta naga soo meeshan joogi lahaayeen fahmi lahaayeen rabideeda waxa waaye waxay ka dambaysaa la yiri 30 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo inay gaarto rabideeda hadii ay gaari wayso waxa imaanayo depression murugo iyo ku dhacaysa murugada ilmihii waa qayb ka mid ah calaamaadka lagu garanayo inay adduunyada sii dhammaanayso markii la arko dumar ka tagay xishoodkii kana sheekaynaya waxyaabaha gogosha lagu sameeyo waxayna gabadhaani tilmaamaysaa waxyaabihii la qarin jiray oo ninka iyo naagta isqaba ay ku samayn jireen guri aad u qarsoon waxaa dumarka Soomaaliyeed intooda badan lagu yaqaanay xishood kuwaasoo afkooda iyo adinkoodaba ay ka qarsan jireen meelaha babliga ah balse maanta waxaad arkaysaan in gabdhihii Soomaaliyeed ay qaarna jirkooda ku qaawinayaan baraha bulshada kuwana ay ka hadlayaan wixii la qariyay